السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ميل كastoo naga daawanaysaan daawadayaal halkani waa Siima TV. qodobada wararkeena ugu door koroneed ku maqli doontiina waxaa ka mid ah safar samate bixin ugaaska beesha Ciise Ugaas Mustafa Maxamed Ibrahim garaadka guud ee salaadiinta dowladda deegaanka Soomaalida garaad kulmiye iyo salaadiinta Soomaaliyeed ee dowladda deegaanka Soomaalidu ay ku soo ogaanayeen xaaladda guud ee galbeedka gobolka City ayaa ka bilaamatay magaalada Madiga noqotay Cundufo maalinimadii shalay toole ee Jimcaha. qodobada kale ee ku maqli doontiin iyagu waxaa ka mid ah ismaamulka Dirdhabe Berriyo Axadaha ay taariikhdu tahay 17 bishii toddobaad. Casho sharaf ayaa loogu diyaariyay qurba joogta dhawaanba ku soo hoobanaysay ismaamulka Dirdhabe. qodobada iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontiin oo aad inii xiiso geliya haddana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan. واتاي داوديال haddana waxaad ku soo dhawaatiin warkii oo faahfaahsan. warka waxay la socodsiin doonaa aniga Ciise saad qodobada baad ku maqlayseen. qodobka ugu horeeya haddii aan soo qabto safaro samate bixin ugaaska beesha Ciise Ugaas Mustafa Maxamed Ibrahim garaadka guud ee salaadiinta dowladda deegaanka Soomaalida garaad kulmiye iyo salaadiinta Soomaaliyeed ee dowladda deegaanka Soomaalida ay ku soo ogaanayeen xaaladda guud ee galbeedka gobolka City ayaa ka bilaabmay magaalada Madiga noqotay ee Cundufo. falada warkaasi waxayna soo qoobaysaa wariyeena Zainab. safaro samata bixin ah oo ugaaska beesha Ciise Ugaas Mustafa Maxamed Ibrahim garaadka guud ee salaadiinta dowladda deegaanka Soomaalida garaad kulmiye iyo salaadiinta Soomaaliyeed ee dowladda deegaanka Soomaalidu ku soo ogaanayaan xaaladda guud ee galbeedka gobolka City ayaa ka bilaabmay magaalada Madiga noqotay ee Cundufo maalinimadii Jimcihii. shacabka Cundufo oo soo dhaweyn aad u sareysa ku soo dhaweeyay ugaaska iyo salaadiinta Soomaaliyeed ayaa waxaa shacabka ka muuqatay wajigooda farxad aan horay uga muuqan xilligan adag ee ay ku jiraan go'doominta colaadda abaarta iyo xanuunada. shacabka oo ku soo dhaweeyay waftiga dhaqanka Soomaaliyeed ee haybada gaarka ah u leeyihiin Soomaalidu ayaa kadib waftiga iyo shacabkuba yeesheen shir albaabadu u xidhan yihiin ay saxaafadu dibadda ka ahaayeen. shirkan ayaa sida la sheegay lagu gorfeynayay xaaladda guud ee galbeedka City, abaaraha, colaadda iyo xanuunada ka dilaacay galbeedka gobolka City. qaar ka mid ah shacabka Cundufo oo dareenkooda la wadaagay wakaalada wararka ee Sima ayaa waxaa mikrofoonka la dhaxmaray wariye Cabdirashiid Xareed waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan. walaal ku soo dhawow Baasima TV magacaaga saddexan. walaal xagee degan tahay? waxaad nooga warantaa soo dhaweynta ugaaska shalay magaalada Cundufo. والله هذا وقت التصوير تاسي أنا إذا كسول دويني نسيت حتى إياك هذا رأيني إني مرتاني فرحة كسول دويني إلا حالنا بيد عيني صوته أمر تاني سيد المودي والنقودي وقاس من هذه اللي وصل على ما بقى عاصمة. بل هذه الصواب حان وقاس كسول توي مدي من وش يكرسه. واحد توي مدي من نكرة وقاس ضد كسرادين تا وقاس كنت بدل مرتاني وقاس كنا ما دوك قرني لكن الصومالية كلمة لا أركب maadaama dhul ay gareeyay lagu dagaalamayay soo arka oo martaan u dhaqo soo mara ee Ibraaci Luugaas ku shaqeeyay ugu horeeyay maanta way arkeen waxay leeyahay martaan uu gobolka Shiido gobolka weyn ayaa martaan iyo hooyada meesha adi shucuurtaada ka waran xabash. shucuurteeda marka inaan naas garanayna Soomaali martaan dowladda Soomaaliya ay leeyihiin maadaama Soomaaliya intaan Soomaali nahay yaan xaqiiqsanay hore waxa shakil jiray. okay aad baa ma santahay walaal ku soo dhawow Baasima TV magacaaga saddexan. waan dhawahay magacayga waa Maxamed Xareed. walaal waxaad nooga warbixisaa soo dhaweynta ugaaska shalay toole magaalada Cundufo. si fiican buu soo dhaweeyay ugaaska ma sha Allah wallahi ku faraxsanahay soo dhaweyntiisa aad iyo aad baan u dhacay heer sare ah waa ka wallahi si fiican loo dhacday. bal shacabka magaalada Cundufo dareenkooda ka waran. xoog lama soo qoobi karo dareenka Cundufo wallahi xoog baan faraxsanahay ma sha Allah maanta horeysa ugaaska ugu yimid magaalada Cundufo aad iyo aad loo soo dhaweeyay kuna faraxsanahay soo dhaweyntiisa. bal ugaaska sababuhu ugu yimaada maxaa kamid ah? dhibaatooyinka dhulka ka jira darteed weeyaan inuu
arko shaaca ka soo qaado xanaaysta dhibaato wax u jirno xaaladda ay maanta galbeedka City ku sugan tahay gaar ahaan indhafo waa ka intaas noogu yimid in la ogaado dhibta nagu hayso meesha okay walaal aad baa mahadsantahay ismaamulka Dirdhabe bariyo xada taariikhduna ay tahay 17 bisha 7 ayaa casho sharaf loogu diyaariyay qurbo joogta oo dhalatay ismaamulka Dirdhabe dhawaanba ku soo qulquleysay ismaamulka mar labaad iyo Zainab iyo Faalada warkaasi noo haysa waxaa ismaamulka Dirdhabe bari oo ay taariikhdu ku beegan tahay 17 bisha 7 2022 si taariikheedka Yurub casho sharaf loogu diyaariyay qurbo joogta u dhalatay ismaamulka Dirdhabe oo ayagu Dirdhabe u yimid xiisaha toddobaadka Dirdhabe casho sharaftaasi ayaa ka qabsoomi doonta guriga boqortooyada ee ismaamulka Dirdhabe oo ay kaarka cashada ka qaadan doonaan Hotel Blossom iyo Ras Hotel hase yeeshee qurbo joogta magaalada Dirdhabe ee ku soo hoobanaysa ayay dadka Soomaalida ah tiradoodu aad u yar tahay taasina ay keentay mas'uuliyiinta Soomaaliyeed ee ismaamulka Dirdhabe oo ka gaabsaday inay dadkooda qurbo joogta ah ku booriyaan in ay dalkooda maalgashadaan isla markaasina xogta jirta u soo gudbiyaan xafladaasi lagu xusayo toddobaadka Dirdhabe ayaa waxaa ka soo qayb gali doona mas'uuliyiinta ugu sarsareysa ismaamulkan Dirdhabe oo ugu horeeya duqa ismaamulka Dirdhabe mudane Qadiir Jowhar waxaana la filayaa in ay mas'uuliyiintu halkaasi ku soo jeedin doonaan sababaha loogu yeeray qurbo joogta u dhalatay ismaamulkan Dirdhabe isla halkaasina ay qurbo joogtu su'aalo ku weydiin doonaan mas'uuliyiinta ugu dambeyntii waxa aynu la kulannay qurbo joogta ku soo hobanaysa ismaamulka Dirdhabe qaar kamid ah oo aynu halkaasi wareysi kaga qaadnay waxaana hadaladoodii kamid ahaa sida tan bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waxaa la yiraahdaa Safiya Maxamed waxaan ahay one of them that came waxa weeyaan wadanka Canada magaalada Toronto runtii waxaan aad ugu faraxsanahay we are so happy to hear the news ka fiican ee wadankayaga ka socda special wadanka magaalada Dirdhabe baaqitaanka dad uu soo jeediyeen madaxdu programka ay ugu ballan qaadayaan qurbo joogta runtii waxa weeyaan we are there and we don't have nothing that we miss our country so waxaan aad u jecelnahay wadankayaga inaan wax ka qabsano wadankayaga inaan hore u marino wadankayaga iyo dadkayaga in ay waxa weeyaan nala qaybsadaan waxaan qaban karno runtii waxaan haddana aad uga xumahay even though anigu aan ku soo baxay waxa weey arrin emergency ah sheekadan waxa weey iyo abaabulkan iyo programka waxaan ugu imiday magaalada Dirdhabe marka waxaan rajeynayaa dad badan oo sidayda inayna gaadhin sheekadani oo ina ka warqabin waxaan aad u jecelahay even though I'm here at the same time I like to tell them what is going on because most of them like me they like to waxa weeyaan inay wadanka lacag gashadaan inay wadanka dhaqaaleeyaan in wadanka wax laga helo because as we are Ethiopian we live far country that is not our country so our country is more important to live and to know what is going on so aad baan ugu faraxsanahay arintan soo kordhay runtii waxaan aad u rajeynayaa inaan ka qayb gali doono oo waxa weeyaan la qaybsan doono wadankayga waxa ka socda oo aan maalgelin sameyn doono haddii Ilaahay yiraahdo iyo baaqa soo socda toddobaadkan Dirdhabe insha Allah rahmaan waxaana laga yaabaa mararka qaarkood inaan waxa weeyaan aynad fahmin af Soomaaliga iyaga but hopefully waxaan jecelahay in la fahmi doono haddii Ilaahay qadaro to be honest with you aad baan u faraxsanahay we are so happy more than happy as Ethiopia as you are welcome us as we are here and as we are already trying to put wherever we can waxa kaloon halkan rabaa inaan baaq uga diro dadka badan ee jooga wadanka Canada special magaalada Toronto waxa jirta Soomaali badan oo wadanka joogta oo aad u jecel wadankooda inay wax ka qabsadaan marka dadka waxaan aad u rajeynayaa inaan ku dadaalo waxa weeyaan labadan cisho ee jooga in aan isgaarsiiyo inay jirto waxa weeyaan ka faa'iideysi fara badan oo waxa weey magaalada Dirdhabe lagu qabanayo oo ay miskareynayaan inay sameystaan because waxa weeyaan sidaan aniguba hadda ula kulmay unbay iyaguna waxa weeyaan uga dhagalaayeen oo inaan war u haynin waxa wadanka ka socda marka waxa weeyaan dawladana waxaan la socodsiinayaa markii ay soo baxdo opportunity-gan oo kale waxa weey chance-kan oo kale waa inaad dadka loo hormariyo waa in waqti dheer la siiyo waa in la isgaarsiiyo waa in loo sheego in wadankii waxa weeyaan laga faa'iideysan karo waxna laga qabsan karo waxna umada looga qaban karo
loo faa'iideyn karo runtii waxa weeyaan aad baan ugu faraxsanahay waxa weeye hadda laga bilaabana waxa weeye wadanku waa wadankayga even though aanan waxa weeye xitaa maamulka aanan waxa weeyaan sugaynin aniga yaa isku dayaya safiya ahaan inaan gacan ka dhiibto inaan u sheego rag iyo dumar wixii halkaa jooga ee waxaysta ee raba inay maaliyad geliyaan magaaladooda oo wadankooda inay kasoo qayb gali karaan dowladuna ugu ballan qaaday inay soo dhaweynayso rag iyo dumar wixii yimaada wadanka Ethiopia special magaalada Dirraba ugu dambeyn waxaan u mahad celinayaa oo aan leeyahay more than welcome more than thank you so much waxa weeyaan Sima TV oo halkan wareysi igu la yeelatay oo waxa weey i weydiisay waxaan ka qabo iyo waxa ila eeg tahay oo aan ka dhiibtay waxa weeyaan waxaan ka dhiibtay aragtidayda marka waxa weeyaan aad baad ugu mahadsantihiin waxa weeyaan newska aad naga gudbiseen Sima TV waxa weeyaan thank you so much meelaad joogtaanba waxa weeyaan xiriiriyaasha waxa weey warka xiriirinaya aad baad ugu mahadsantihiin sida ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim marka horeysa waxaan aad ugu faraxsanahay baaqa oo ku dhawaaqay maayarka magaalada arintaas oo hadda ka hor annaan maqal oo anigu hadda imid oo soo gaaray magaalada Dirdhaba la kulmay arintaas oo xiisa gaar ah nagalisay oo hindise weyn nagalisay in dadkii naga maqnaana aan u yeerano oo u sheegno xaqiiqan Dirdhaba sidaan ka qabnay markii hore iyo maanta weji kala duwan ma ku aragnay waxaan u sheegaynaa dadka inay dadku yimaadeen ay maal gashadaan wadankooda wax ay maal gashadaan sababtoo ah wadanada dibadda aan joogno waad ogtiin wax lagu hayaa ma jiro ruux walba wadankiisa ma joogo nin kasta wuxuu u baahan yahay wadankiisa inuu kor soo qaado oo dadkiisa caawiyo isaguna wax ka qabsado sida daraadeed waxaan leeyahay anigu maayarka fikirka uu qaatay waa fikir positive oo aad iyo aad lagu baahan yahay gaar ahaan qurba joogta iyo dadka kaleba haddeen nahay anigu gaar ahaan waxaan ka imid magaalada Canada dad badan oo reer Dirdhaba ayaa jira dadka reer Dirdhaba ma ogo arrimahan marka hadda I hope in arinta aad iyo aad aan gaarsiin doonaan fikirka hadda socda insha Allah waxaan rajeynayaa in arintaas uu maayarku aad iyo aad ugu farxi doono wixii ka soo bixi doono waxaan soo gabagabeynayaa inaan maarid u mahadnaqo Sima TV oo anaga arintan na soo gaarsiiyay gaar ahaan oo si fiican noogu soo tafatilay marka iyo gaar ahaan dadka maayarka iyo dadkaas oo dhan aad iyo baan ugu mahadnaqaynaa noogu baaqay arintani waa arin aad iyo aad muhiim u ah waxaan jecelahay in laga gaari goono heer sidaas baan leeyahay in waan gaarsiin doonaa wixii aan anagu gaarsiin karo laakiin arintan waxaan qabaa waa la nagala daahay waxay ahayd in hore la noogu soo sheego oo arintan aan u soo diyaar garow laga yaabaa in madaxda hore u sheegeen laakiin anaga nima soo gaari marka waxa loo baahan yahay inaan helo communication anaga iyo idinkan ka dhaxeeya oo la helo waa in arintaana lagu dadaalo assalaamu calaykum waraxmatullaah awaatay daawadayaal weli waxaad nagala socotaan waa Sima TV qodobada dalka dibadiisa aan iniga haynana waxaa ka mid ah golaha wakiilada ee Mareykanka ayaa khamiistii meel mariyay hindise sharciyeed oo sii adkeynaya qorshaha madaxweyne Joe Biden ku doonayo inuu diyaaradaha dagaalka ee noocyadoodu yahay F-16 uga iibiyo Turkiga falada warkaasi waxay noo soo koobaya wariyaheena Baashe golaha wakiilada ee waddanka Mareykanka ayaa khamiistii meel mariyay hindise sharciyeed sii adkeynaya qorshaha uu madaxweyne Joe Biden ku doonayo inuu diyaaradaha dagaalka ee nuucoodu yahay F-16 uga iibiyo dalka Turkiga xildhibaanada Koongareeska ayaa isbedel ku sameeyay xeerka difaaca qaranka si ay diyaaradaha si fudud ugu gacan gelin madaxweyne Erdogan Franco Poland iyo Chris Babb oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa mooshinkan horgeeyay aqalka waxaana lagu ansixiyay aqlabiyadan 244 cod halka 179 codna looga soo horjeestay shuruudaha cusub ayaa lagu xiray madaxweynaha Mareykanka haddii uu tallaabo u qaadayo inuu diyaaradaha ka iibiyo Turkiga
waxaa shuruudaha ka mid ah in maraykanku uusan diyaaradahan F-16 siin karin maraykanka ilaa dawlad ay ka caddayso in tallaabada ay muhiim u tahay amniga qaranka maraykanka. sidoo kale waxaa maamulka khasab ku ah inay caddeeyaan tallaabooyinka ay u qaadeen xaqiijinta in diyaaradahaasi markaa Turkiga la siiyo uusan ku fulin doonin duulimaadyo aan fasax loo haysan oo ay ku maraan hawada waddankaasi Giriigta. arrintan ayaa u muuqata qorshe dawladda Turkigu ay ku doonaysay inay diyaaradahaasi uga soo iibsato Ameerika, kuwa oo hadda u muuqda kuwa guuldarro weyn kala kulmaya arrintaasi. waa tahay warkii oo siimay naga soo gaaray intaasi aynu kaga dhan yahay intaan warkan warkiisa ay ku kulmayno noqle kulantayo salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.